xildhibaanada sharafta loo walaalayaal sanadkan aan joogna waxaa jirtay 5 arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno 5taas arrimood laba ka mid ah go'aanka gaaristeeda waxaa iskale Soomaalida annaga Soomaalida ah iskale inaan go'aan ka gaarno oo aan soo gaarno meel aan go'aan uga gaarno 3 ka mid ana beesha caalamka ayaa iskale go'aanka gaarista laakiin beesha caalamku si ay go'aan u gaarto hawl badan oo go'aanka gaaristaas ku saabsan aan qabanaa annagu si aan go'aan u gaarnana hawl badan oo farsamo oo go'aanadeena aan gaarina qurxinaya ama fududeynaya ayaa caalamku naga kaalmeeya labada annaga go'aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaabka xoreyno waa soo bilownay waa wadnaa inaan xoog isugu geyno dhammaystirno oon waqtigu ugu dheeraan annagay naga go'daan cid kasta rasaasaana la sii karaa raashinaana la sii karaa shidaalaana la sii karaa la talinaana la sii karaa laakiin wiil dagaalamo oo frontiga tagana lama siin karo waana la soo siiyey waan xoreyn waaye kuweena markaan aan aadayna waan aragnay inayna xoreyn karaan soo go'aanka annaga iskale dalka inaan shabaabka irino ka saarna ka xoreyn qodobka labaad oo go'aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku meel gaarka inaan dhammaystirno cid noo dhammaystiraysa ma laha intaasoo sano neebaasha ha lagu shiro istanbul ha lagu shiro maxaan ku iraahdaa inta ha la aado kambaala ha la tago waa soo marnay nooma noqoto maanta dastuurka gacanta noogu jiraa annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanayna go'aan uga gaarina waa yeel waayo waa annagoo aan isyeelyeelin baarlamaanka sharafta leh waxaan aad iyo aad uga codsanayaa arrimaha masiiriga ee na khuseeya muhiimadda ay leeyihiin caatifad ma galaan qof jacayl ma galaan qof nacayb ma galaan degaan gaar oo helin ma galaan Soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay ama waa isla jiranaan kuwii fiicnaa oo hor u socday inay sii socdaan aan rabnaa inta kalena ay daba kacday ka daba tagtaan rabnaa waana yeeli karnaa walaalayaal waa noo muuqatay waa aragnay waa soo tijaabina waa yeel waxaan aaminsanahay qof bini aadana oo sanquneera oo adduunka ku nool waxa uu samayn karo inaan samayn karaan qaba waana samayn karnaa dastuur aan yeelan karnaa dowlad aan yeelan karnaa dhaqaale aan yeelan karnaa waxa aan ku yeelan lahayn oo dhanna waa qabnaa dowlad haddii la noqonayo waa qabnaa dad isku mid ah isku dad ah isku diin ah isku dhaqan ah isku hab nololeed ahna dhaqaale haddii la tacbayna waan leenahay bar iyo beer iyo bad intaba cid naga dhaqaale badan naga badan maanta adduunyada ma jirto 9 milyan oo hektar oo dhul beereed ah 2 webi oo joogto ah bad 3,300 kilomitir ah adduunyo aan u furanahay Asia iyo India ilaa dhulka ilaa Carab meel walba aan furanahay sabab aan dhaqaalaheena kor ugu soo kici waayo Soomaaliya strategic location ay ku taala dowladda Soomaaliya mashaariic waaweyn oo himilooyin waaweyn leh ayaa hadda negotiation ku jirta waqtiga ku habboonaadaan oo meel soo gaarana adinka go'aanka gaarista qayb kale oo iman doona labadii aan lahayn marka waa labadaas walaalayaal meel fiican ay marayaan dhammaystiray naga rabaan labadaba dhammaystir waa waxa naga raba hadda ma soo unkeen saddexda caalamka uu leeyahay midda shalay ugu horeyso oo suuqa East African Community inaan ku biirnay 7 madaxweyne ayaa go'aankeeda iska lahayd anigu waa joogay meel aan fadhiyay ilaa go'aanka laga gaaro markii go'aanka la gaaran soo dhex fadhiistay calanka Soomaaliya la soo qaaday oo maxaa ku meesha soo go'aankeeda annaga ma lahayn waana loo hiliyo laakiin wixii oo naloogu hili lahay asbaabtii naloogu hili lahaayeen sameeyay muddo sanad ah ayaan waxaan ku soo jirnay wada xaajood iyo inta imaada xagga taga inta dad badan 50-60 qofood wafdi ah inta yimaado halkaan oo wasaaradaheena iyo hay'adaheena dhan uu eego annagu aan tagno waa soo wadnay waa nimiday waana waxa la nacam dadkaani waa mudan yihiin waana u diyaarsan yihiin dad ahaan waa u diyaarsan yihiin aqoon ahaan waa u diyaarsan yihiin dawlad ahaan waa u diyaarsan yihiin waan ugu soo biiri karaan kaasaa ugu horeeyay shalay ilaahay idinkiis waa ka soo libkeenay waxaan loogu xiga labada kale
ودين عفنته يعون قبتين تقبك بيش ديسمبر يكون جيران بيش ديسمبر هو تيدا أسبوع أقول رأيه عون قبتين تقبك دمانة إن شاء الله بيش ديسمبر سدح يتوبن كذا دين عفنته أيضا دمان دون تهدي أليرا سدح ذاسي إنا إنت نقص دمات annaga aan ku weyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wajiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahay sharafta la meesha fadhiya inay aad iyo aad u fahmi karaan guul iyo wanaag iyo farxado badan oo isdaba jooga sanadka inta ka dhiman ayaan rajaynaynaa sidaas daraadeed mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kal fadhigiisa afaraad waa noo furan yahay aad iyo aad ayaa